xafladaasi qalinjibinta oo si heersare loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaasha degmooyinka caasimada ee xisbiga kulmiye mas'uuliyiin ka socotay ururka haweenka qaranka ee NOW iyo mas'uuliyiin ka socotay xisbiga xaamkanka kulmiye iyadoo ururkaasi haweenka ee qaranka ee NOW ay ka qalinjibeen 500 arday oo bartay xirfado kala duwan oo ay ka mid tahay cunto karinta gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga xaamkanka kulmiye محمد كاهن أحمد وغورين حفلة داسي قلنشمنتا كهذلي أي الضبولك كقاضي إن سياسة حزب الكلمية يديري قليل يسين هوينكو أي كغيب غاتان تلاد الضلكة والدفعات دي الرئيسي حرونتا أورك اللغو تبابرا وحنا كبرتي وحان شاء الله هاي وأنوسو تشيدين إن هالكا كسي ودان ولما فرسلوي كان لسي كرديو وحين نوغنا هاي waxbarashadu inay dadka faqr qara ka saarto bini'aadmigana ku hagto xagga horumarka geestagana gudoomiyaha ururka haweenka qaranka ee NOW Xaliime Xaaji iyo gudoomiye ku-xigeenka ururkaasi Yurub Abiib Cabdi ayaa si wada jir ah uga warramay maraaxilkii kala duwan ee ururkaasi soo maray iyo horumarka uu ku tallaabsanayaba dad badan oo markii ay noo yimaadeen arday badan waxa jirta waxba garanaynin maanta ma sha Allah xirfad badan ku shaqeystaan leh maanta anaga farxad bay noo tahay ayagana waxay u tahay wax qabadan ma sha Allah marka ma ahan maanta hada kan ugu mashruucan ugu gabagabeynayna maadaama mashruucan ablaha badan wax ka bartaan dad badan ka faa'iideysteen mar labaad inuu mashruuc uu bilaamo ardayda ka looga sii wado hadii la ka dhigo marwaamiis runtii waa inuu hal cilmiina aad bay noo shaqeysay si fiican bay noo shaqeysay وإسكاية قرب تاكتي أو معلمين تناقض نيسي أو بتشط ناقص نيسي أو إسكاية قرب تاكتي مرة أنا أقول لك قف الوقت وقرب جود السد إلهي بوجاب العليا إلهي كجاب العليا dhankeedana agaasimaha madaxtooyada Khadra Xaaji Geeydi ayaa si faahfaahsan uga warramatay sida ay xukuumadda u garab taagan tahay ururka haweenka qaranka ee NOW ay hawshaaka ay ku joognaan oo ay garwadan ka tahay marwada qaranka marwaamiis walaanteeda in hawshan socoteen una taagan mar walba say dumarku horumar gaareen ama uga qayb galaan siyaasadda ama u noqon lahayn mar walba hormoodka dalka ayadana sanad gaar ayaa u fidinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wadadaan ay tacabteen inoo galay gaar ahaan dumarka jecel inay siyaasadda ka dhex noqdaan intii uu dalka hayay nolol kala dumarku siyaasadda meel fiican bay ka taaganay markay xukuumadii hore u eegno dhankeedana maareeyaha xafiiska samafalka ee madaxtooyada Aamine Maxamuud Diiriye ayaa sharaxaad dheer ka bixisay heerarkii kala duwan ee ururkaasi soo maray muddadii uu jiray gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiye Canab Cumar Ileeye ayaa bogaadis waxbarashada gabdhaha gabagabadii xafladaasina ardayda ayaa ku maamustay shahaadooyin macallimiintii wax soo baray halka macallimiintuna ay shahaadooyin gudoonsiiyeen ardaydii ka qalin jabisay ururkaasi haweenka qaranka ee NOW